labaatan sano oo waxaan iskula joognay inuu boyfriendkayga yahay dowladda ayaana biili jirtay 20 sano lacagta aruuris gaariga xataa gaari duq 1992 gaari veena aan ka hadlayo waa Farxiyo Janno walaasha TikTok-ga go'aanka ah TikTok waxay u soo gashay stress family haya awgeed sida la arkayo waxay leedahay ma jecleen inaan ka hadlo waxay go'aanaysaa waa 20 sano inta kuma dhamo waa 20 sanadan waxay go'aanaysaa hanti ka maqan waxay go'aanaysaa jacayl ka tagay waxay go'aanaysaa ilmaheedii ee dhuunta qabatay waxay go'aanaysaa iyadii oo dhuunta isqabatay waa xaalado badan ay go'aanaysaa waxa ka maqan xoolo jacayl nin ilmo nolosheedoo dhan ayaa maqan way oynaysaa inta bilaadan ilinka qabato ayay ilmaha ka qabanaysaa way rafaadsan tahay inta bilaadan oo rafaadi lahay waxa khiyaameeyay waa iyada sawjkeeda ee ilmaha u dhashay ma aha nin kale waa iyada sawjkeeda ee ilmaha u dhashay waxa ka maqan 300,000 oo doolarka Mareykanka ah ayuu la tagay waxay tiri waxaan ahay 20 sano oo aan la noolay ee aan isqabnay waxaan ku nooleen Sambo oo ah ilmaha saaxiib ayaa iga dhalay oo shareecada islaamkuna ay xaraan ku tahay Farxiyo waxa ku dhacday carada alle xaqiiqatan carada alle ma dareemayaan dadka markii igfaraa ku jiraan laakiin markii ay u shabab ku dhahdo إلهي مكو آياتها اللي مروا البو وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الفاسقون يعني إلهي مكو اللي حدود هدافنا لي حدك واحد كالله واحد كالدين كوي هقولنا هدافنا لهذا أنا هنا وقلينا وحي تري سامبو أيام كلنا والله إنكيجو إنمهي وحن كل صاحبتنا ما waxay tiri wixii xoolo ee aan aruusanayni ee meel dhigay ilmahayga xataa waxay rabaan u gadi jirin dhuntan qaba jiray waligay tiri cunugayga maqaayad ma geyn hadda waa yuro way ku nooshahay hadda waa lacag haysataa hadda waa soo gashaa hadda ma baahno ilmahayga waxay tiri waligay maqaayad ma geyn wal ciyaad billahi rabbil alamin waxay tiri waxaan ku socdo gaari 90 ka soo baxay ee habeenii maalin jidka kula fariisanayo si lacagtaas aan u aruurino oo aan lacag u galin nolosheena ما لو بيسجل ما قرحنين ما فرحسنين نلوشي دون وحي او فكريسي بري مكاد ويناتن اديق نينكاغا اد كورحيساتان اد جعيلكين نلوشين اجشين waxay tiri fioriya la aaminin yaani la dhageysan waxay tiri lacagti aan aruurinayay intaas oo sano ee aan isla meel dhigayno oo aniga aan odagayga aan u hoos fariisanay waxa dhacday tiri in oo intoo baxay Afrika tagay guri dhisay gurigii aan isdahay bal aa ku raaxaysatid ajajajaja gabar yar oo xuran ayna doon dhaxyar ya ayaa lagu guursaday waxay tiri gabadha la guursaday caruurtayda ayay la egtahay waa gabar yar oo 20 jira Farxiyo arinta ku dhacday ma ahan gabadha ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee ku dhacday mana noqon doonto gabadha ugu dambeysay ee ku dhici doonto arimahan iyo arimo ka badan ee baraha bulshada Soomaaliyeed ee Soomaalida dhaqanka hadda inta bulshada aan arkoono waxa ka hooseeyo oo ka badan oo la wada ogyahay oo dhamaanteen aan ognahay ayaa magaalada ku wada nool hooyooyinka dharka way iska wataan laakiin stress baa haya hooyooyinku way iska socdaan laakiin waa waaleeyeen hooyooyinku hanti odayaashooda iyo ku kalsoonada waxay gabadhan dadka ku tarbiyanaysaa deer ninkaaga ha cararino naaq baariya ha u naqan wax kastane ha u soo hormarin taas maxaa keenay waxay leedahay iyadu waxay aaminsan tahay baarinimadii ee ninkeeda u gashay inay halka dhigtay ma dhigin xaqiiqatan ma dhigin arintaas ninkaaga oo aad baari noqoto ilaahay baa ku yiri jannada ay ku galaysaa taas ما يعني ويقعليسا قف عروسان واي قف حناقسان واي قف داوعان واي وداوعان تahay قف مكو داوعان يعني يريداس in qosol baxdo waa normal way daawacan tahay gabadha daas way ay leedahay ninkiina ha yani ha adeecina laakiin
ogow gabadh yahay ninkaaga markaad adeecdo waxaad ku gelaysaa jannada, waxaad noqonaysaa mid adduunka haddii aad ku ballanbasho xataa aakhiro ku raaxaysataa. laakiin mid aad dumarka ka baqan, mid yacni naftaada jeclow ee dadka ku tarbiyeynaysa hadeer. waxaa rabaa inaad fahantaan dumar haddaad tihiin, tani waa xoolo ciyaalka ay leeyihiin. xoolaha ciyaalka ay leeyihiin yaa aruur gudhaa. sababta aruurinay waxay tahay waayo aabood ugu aruurinaysaa, waayo adeerkood ugu aruurinaysaa, waayo oo mas-uul ugu noqonaa xoolaha ciyaalkaaga adeerkood ama aabahood labadaba ayagaas kale. ilmaha lacagta ayagaa la siiyey geli ayaga waayo loo aruurinaa. sababta loo aruurinaa maxay tahay ilmaheena Soomaaliyeed waxa criminal wada geliyey ee kulligood daroogada u wada iibinayaan. wax kale ma ahan, wax kale ma ahan. waa hooyadooda dhunta qabatay iyo aabahooda dhunta qabtay. xaqiiqatan waa hooyadooda dhunta qabatay iyo aabahooda dhunta qabatay. waa kaa 20 sano oo ilmo qorbo lagu korshay oo weligood maqaayad la geeni kabar. ilmahaas maxaa ka soo baxay? ii sheega ilmahaas wixii ka soo bixi kara ilmaha qorbaha lagu korshay ee lacagta haysta ee maanta Yurubta laga fadhiyo ee lacag la'aanta aan ahayn ee weligood maqaayada hooyadooda aabahood aan geenin maxay sababsan karaan? waa ilmaha jidka ka dhumo. number 1 kuwaas waa ilmahaaga. naagta dumarka qofka dumarka ee ninkeeda adeecdo number 1 waay. laakiin yeensan ku adeecin ilmaheeda iyo jirkeeda iyo nolosheeda ugu horeeya horumarkeeda. yacni tusaale fiiri, ilmaha lacag qaataan ayaga dowladdaas iyo dowlad gooni u siiso. xataa haddaa isqabtaan nin naagba ilmaha lacag baa qaataan. lacagtooda ha u faragelin. maqaayada ku aadaan, dharkooda ku gataan, mobilkooda ku gataan, daatadooda ku gataan, noloshooda ku fushaan. adi xataa isticmaal hooyada tahay mu bahnid dee lacag kusoo gashay wixii kusoo gala isticmaal ku tuma daarteed adiga nafsadaada bahdil. laakiin ilmahaada ha bahdilin, ilmahaaga ha bahdilin, caruurtaada ha baabi'inin. hooyooyinka ayaan la hadlaya taas. caruurtaada ha baabi'inin. midda labaad kuu soo hartay waxay leedahay anigu kama labisan, noloshaydu waa ku baabi'iyey. baabuur xun oo waxaa watay oo jidka habeenii maalin la fadhiisanaya. hadda noloshaada dada jeclaan yaa artaa inuu manin baa artaa inuu ku ixtiraamo naftaada. ma qof gabadha nafteeda ixtiraam weyso wallahi inuusan nin ixtiraamaynin. yes ninkaaga waxaa lagaga baahanyahay inaad qadarisid. yes ninkaaga waxaa lagaga baahanyahay madaxa inuu kuu saarnaado. ninkaaga waxaa lagaga baahan yahay inaad u noqotid gabar baariya ee wanaagsan ee warkiisa maqlaysa ee u dhaga nugul. taa waa loo baahan yahay oo adeecayso hantida u dhaqaaleynayso. laakiin dhaqaale ayay kaa gelin inaa adiga quruxdaada baabaado, ina ilmahaaga aad ma taqaanaa jidka ka baxaan hooyada ka lumaan yay kaa gelin. aad baa idin salaamayaa. hooyadan waxa ku dhacay oo hooyooyin badan ee Soomaaliyeed wixii ku dhacay wixii hooyooyin Soomaaliyeed oo fara badan ee u hoogeen oo u baaba'een waa taas. walciyaadu bilaahi rabbil caalamiin. war niman yahow gabdhaha ay adoo waayeelaa oo 40 jira oo 50 jira oo 60 jira markaa saqsaqdaysa gabar yar oo 20 jira oo ilmahaaga leeg aad guursanaysid naag baa adduunka weysay. midda kaleeto niman yahow markii aad xoolo naageed ee aad wada aruursateen oo wada leedihiin kasoo qabo wada leeyihiin baa sidii meel oo dhiga of course kaligeed ma ahan. xoolo islaameed ee naag kula leedahay marka aad guri ku gadatid aa naag kale ku keenaysid niyo ragnimada intay ka aadi. wallahi billahi ninkaas nin ma ahan, rag ma ahan, geesina ma ahan. ninka geesiga waa ninka intiis ku faano. ninka geesiga ma ahan ilmihiisa hooyadood ninka bahdila ma ahan. aad iyo aad raggan waa taladan soo siiye iska dhaafa xoolaha dumarka ayaad ku guursanaysiin. xoolaha dumarka ee aad ku nafcinaysiin. jirka dumarka ee aad ka ganacsanaysiin iska daaya. wax fiican ma ahan. aad iyo aad ay idin garaafaynaysaa adiga iyo mustaqbalkaaga dambaba. ilmahaaga dambe xataa hooyadood way waalatay way istaleystay oo ku furan tahay ilmahaas bay ku kori kartaa. way duquudaleed aad baa duquudatay muddaad ma cunug bayr baa tahay. aad baa ugu xumaa gabadhaas wixii ku dhacay. laakiin ilaahay subxaana watacaala kaasho ayaan ku leeyahay gabaryahay. sabar ayaan ku leeyahay si dadku hore kuu dhaheen ayaan ku leeyahay sabar adkeysane. wixii ku dhaaf waa baxeen 300,000 oo doolar lacag fara badan waay. laakiin maskaxdaada iyo caqligaaga iyo hooynimadaada iyo kartidaada ayaa ka weyn 300,000 oo doolar ee aad u weynaysid. waxaa ka weyn damiirkaaga